kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa National TV kuna soo dhawaada qodobada ku jira warkeena. Sargaal ka tirsan booliska Hirshabelle oo lagu toogtay magaalada Beledweyne ee ciidamada ammaanka oo iyagana toogtay raggii ka dambeeyay dilka sargaalkaasi. Madaxweyne Dino ku guuleystay inuu iska xalliyo xiisadii Boosaaso isagoona kala qaybiyay hay'adda BSF wararkii ugu dambeeyay doorashada maanta ka dhacaysa Boosaaso ayaan idin haynaa. Jubbaland oo ballanqaad u sameysay guddigii Ra'iisul Wasaare Roble oo magacaabay arrinta Garbaharre ayaad maqli doontaan. Qodobada iyo qodobo kale ayaad uga bogan doontaan oo faahfaahsan goordhow. fadlan daawade haddaad ku cusub tahay janaalka subscribe saaro riixna gambaleelka si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay gudaha dalka iyo dibadda ayagoo aad u xiiso badan laagtan waa inoo muhiim saaxiibayaal. وهجاك sargaal ka tirsan ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa xalay lagu dilay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan sida ay noo xaqiijiyeen hay'adaha amniga ee magaaladaasi. sargaalka oo lagu magacaabi jiray Axmed Xasan Biriq ayaa markaasi lagu dhex toogtay xaafadda Holwadaag ee magaalada Beledweyne. sida ay noo sheegeen saraakiisha ammaanka ee magaalada, ninkani waxaa dishay kooxo bastoolada ku habaysan waxaana magaalada ka socda howlgallay markaasi amba howlgallay ay sameynayeen ciidamada xoogga kuwaas oo ay ku baadagoobayeen markaasi dadka amni darrada ka abuuray magaaladaasi. Beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu ammaanka xun dalka waxaana ka dhacay dilal qorsheysan oo kooxda Al-Shabaab ay sheegato inta badan mas'uuliyadooda. sidoo kale magaalada waxaa inta badan ka socda doorashada kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadu tahay gobolka Hiiraan waxaana ku sugan dhammaan madaxda sare ee dowlad goboleedka Hirshabelle. waxaa xusid mudan in ciidanka xoogga ee dalka oo isugu jira gorgor harmacad military iyo booliska ay isku markaasi howlgallo ka sameynayaan magaalada Beledweyne oo markaasi lagu dhex dilay mid ka mid ah saraakiisha booliska ee ka howlgala magaaladaasi. dhanka kalena haddaynu eegno magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa lagu dhex toogtay laba nin oo la sheegay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwaas oo xaafadda Holwadaag ee magaaladaasi ku dilay Axmed Xasan Biriq oo ahaa sargaal ka tirsan booliska Hirshabelle. waxaa la soo bandhigay sawirada midadka labada nin ee la toogtay kuwaas oo dusha laga saaray bastooladihii ay markaasi sargaalka ku dileen. sidoo kale saraakiisha ammaanka magaalada Beledweyne oo aan markaasi la hadalnay waxay noo sheegeen in nolosha lagu qabtay 3 qof oo kale kuwaas oo lagu tuumayo inay dilka markaasi sargaalka ay ku lug lahaayeen. Beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu ammaanka xun dalka waxaana inta badan ka dhacay dilal markaasi inta badan ay sheegato kooxda Al-Shabaab. kooxaha dadka dila oo inta badani baxsada ama baxsan jiray ayaa markaasi xalay la toogtay kadib markii howlgal degdeg ah oo ciidanka ay fuliyeen ay markaasi ku soo qabteen raggaasi waxaana midadka ragga la soo bandhigay ama markaasi laga soo duubay muuqaallo ayagoo markaasi rasaas ay ku taalo. dhanka kale maamulka safaaradaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Germany, Belgium iyo Serbia waxay sameeyeen bar isgaarsiineed oo waxtar u leh muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka soo qaxay Ukraine ee ku sugan dalalka Poland, Romania iyo sidoo kale Serbia. maamulka safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Belgiumka ayaa sidoo kale xafiis adeeg markaasi qonsuliyadeed oo ku meel gaar ah u sameysay soodinta xiriirisa wadamada Poland iyo Ukraine ee loo yaqaano xarunta qaabilaadda markaasi Halakijowska ee markaasi magaalada Warsaw la yiraahdo. haddaba dowladahaasi martigelinta sameynaya waxay markaasi soo dhaweyn doonaan inta badan ardayda Soomaaliyeed ee markaasi gaaraysa dalalka Romania iyo Hungary. waxaana markaasi inta badan ardayda Soomaaliyeed ee ka soo qaxay Ukraine ee markaasi daneynaya in waxbarashadooda sare ay u sii wataan ay markaasi la xiriiraan markaasi mas'uulka wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale iskaashiga caalamiga ah. warkii ka soo kordha arrimaha Soomaaliya iyo dalalka markaasi waa markaa dalalkaasi Poland iyo sidoo kale Ukraine dagaal ka socdana barnaamij wareedadana kale ayaad markaasi uga bogan doontaan. dhanka kale haddaynu markaasi aan eegna guddiga qiimeynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee Garbaharre oo magacaabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa soo gabagabowday wadahadalladii sidoo kale kulamadii wadatashiga ahaa ee magaalada Kismaayo kula yeesheen mas'uuliyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland ee khusayso doorashada Garbaharre. guddiga ayaa tan iyo Arbacadii toddobaadkii hore ay gaareen magaalada Kismaayo waxa ay kulamo la yeesheen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, xildhibaano heer federaal iyo sidoo kale heer dowlad goboleed. guddiga qiimeynta ayaa sidoo kale kulamo wadatashi ah iyo aragti ururin la yeeshay qaar ka mid ah duubabka odayaasha markaasi salaadiinta nabadoonnada iyo deegaan doorashada Garbaharre ee dowlad goboleedka Jubbaland. guddiga uu hogaaminayo la taliyaha dhinaca sharciga ee Ra'iisul Wasaaraha
Cumar Maxamed Cabdulle ayaa xubno ka yihiin qaar ka mid ah madaxda guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa la filayaa inay markaasi ku soo noqdaan Muqdisho. waayahay ugu dambeynna markaasi haddaynu markaa eegnana markaasi dagaalada Ukraine ka socday wararka ku aadan Ukraine wareegii labaad ee wadahadalka Kiev iyo Moscow ayaa soo idlaaday iyadoo markaasi labada dhinac ay ku heshiiyeen qorshe hordhac ah oo markaasi lagu abuurayo marino ammaan oo dadka rayidka ah oo markaasi looga daadgureyn karo goobaha ay dagaaladu ay ka socdaan. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in howlgallada Ukraine ay ahaayeen kuwo uu markaasi soconayay sidii loo qorsheeyay. ciidamada Ruushka ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada Kherson oo ku taala koonfurta Ukraine. dhowr magaalo oo kale oo ay markaasi ku jiraan caasimadda Kiev waqooyi bari ee markaasi Kharkiv iyo sidoo kale Mariupol oo ku taala koonfur bari ayaa weli weerarku uu ka socda waqtigan. wararka ku soo kordhana barnaamij wareedada kale ayaad markaas uga bogan doontaan saaxiibayaal. إنا لله وإنا إليه راجعون. سرقال بوليس اللي بحد قلب بوليس أحمد حسن برق الله أنه حريستوك عنك أقدر ما أدري شيء. قياش الدليلنا وكواس عد اسكت ضيدا السجم حالنا الله أنه حريستو عنك أقدر ما أدري شيء وسج جنة درس الله كورابيو. لقى قياش الدليلنا وكواس أيجنا جوابته وكجوابنا عندما قلب كسيدا كجوابي. وكواس أيجنا ماشي يالله مت كستو اسكت ضيدا ورقبه إن فل نوعس فلينا حرجينا أسيجنا إن قعدت أقول أنت جوابتي أساس نقطة. بسم الله إنا لله وإنا إليه راجعون. واحد عيعاوة غيرين حد الله سركال كترسن عيدن كبوليس كصوماليات قالهان عيدن كدولة قبلات كهيرشبيل أيا كوحد نجار قبيالة أو كوحا على استيديق أمة الصوماليات وعيكون ديرين أسرع أو جو قاب ودو سلقة بوليس كقلبات إلهي مهدي إسلام مركبة وحفعل كي كجوابي ciidamadii saldhigga galbeed ku sugnaa iyo taliyii saldhigga oo ka duulaya duulaanka ay ku soo qaadeen kooxaha dhagarqabayaasha ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta sidaa darteed isla markiiba waxa Ilaahay suuro geliyay in caruurtii yareed ee la soo qalday ee guryahooda laga soo qalday ee dhagarqabayaasha ahaa ee waalidiintood laga soo qalday akhlaaqda ka halawday in halkaas la soo dhigo meydkooda waxaan leenahay aan fariin u dirayaa kuwa la soo qaldi doono akhlaaqda ka dhuntay caasi waalidiinka ah ha kuwaana qaataana kuwaan ha arkaana dhagarqabayaashan markay sarkaalka dileen kadib waa ay dagaalameen ciidanka geesiyaasha ayaa ka jawaabay dagaalkii ay dagaalameen waxay gaaray dagaalkooda in ay bambooyin tuuraan xitaa waad arkaysaan bustooladaha laga soo qaaday oo ay wateen ay ku dagaalamayeen bambooyinka ay wateen qayb ka mid ah qaybtii ay rideen maahan qaybtii kaleenta ilaahay baa mahadda iskale labadii dhagarqaba iyo labadii bustoolad iyo bambooyinkii ay wateen ee sarkaalkii booliiska ahaa ee qaymaha badnaa lagu qaaliga ahaa dilay waa caruurta nuucaas u taala akhlaaqda ay ka dhuntay ummadda muslimiinta loo soo diray waxaad ogtihiin diinteena islaamka waxa ugu muhiimsan ee ay xaaraantimaysay oo ugu qaalisan waa dhiigga muslimka in inta qof muslima laga soo dhaadhiciyo inaad soo disho dhiiggiisa aad ilaahay ku raali galisaa ma ahan wanaaga akhlaaqda ka dhuntay akhlaaqda ladin sheega waxa waaya inaad wax xun qaadataa oo aqbasha akhlaaqdu ka dhuntay waxaan leeyahay caruurta la qaldaya ka waantooba digniina idin diraynaa kaalay imaada waxaan rabaa inaan hal maada raaciyo shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waad aragteen kooxahan arxalaabayaasha aqoonyaanka aan rabin sarkaalka aan rabin culimada aan rabin cid ay rabaan aan la arkin anshaxa aan lahayn in aad mataqaanaa kaalin ka qaadataan oo aad ciidanka ka caawisaan meeshay istaagaan ay koob shaah ka cabaanba inaad sheegtaan fariinta shacabka Soomaaliyeed u dirayna waxay tahay caruurtiina ka warqaba canugaada ka warqab meesha jira hadaadan canugaada ka warqabin annaga ka warqabi doono markaan soo qabanno ama aan wadada soo dhax dhigna hadhihin canugayga awliyo wahaye shaqo igu maqnaaye shaqo kugu maqneede
stupid wuxuu ahaa akhlaaqda ka dhuntay oo adigana aad ilaashan waysood ka warqabi waysay intaas ayaan u dirayaa fariin